waxa aad ka soo jeedaa beelaha liita uma qalantid inaad guursatay gabadheena ma geysid oo gayaanka maahan iyo erayo kale ayuu xabsi ugu jiraa muddo ku dhow 6 maalin qofka aan ka hadlayo waa mid ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Shariif Shuuriye isla markaana ku xiran gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle sidoo kale tana ku jira container muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa dhacdada urkutaalada leh ee shacabka Soomaaliyeed dhagahooda aysan maqli karin laakiin laga fursan waayay in la maqashiyo dhagahooda maadaama ay tahay dhacdo gaf ku ah bulshada Soomaaliyeed qayb ka mid ah isla markaana lagu takoorayo beelaha walaalaha ee Soomaaliyeed laguna kala geynayo cadiifadna looga dhax abuurayo laakiin intan muuqaalka u galin like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada bogana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid aynu ku bilowno wariye Shariif Shuuriye waxa uu ka mid yahay wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada dawlad goboleedka Hirshabelle waxa uu magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi ugu xiran yahay maxaad u guursatay gabar ka soo jeeda beesha xawaadle darteeda iyadoo halkaasi ay ugu xireen xubno ka tirsan maamulka Cali Goodlaabe Xuseen wariyaha ayaa waxa uu ka soo jeedaa beesha Jareerweyne waxa uuna maanta maalintii 6aad oo xiriir ah uu ku xiran yahay magaalada caasimadda u ah dawlad goboleedka Hirshabelle waxa uuna jeclaaday gabadha waxa uuna u xiran yahay maxaad u jeclaatay gabadha isagoo ku jira mid ka mid ah konteenarada dhaxyaala saldhigga booliska magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle konteenarkaasi oo waliba meel cadceedu ay saa'id u kulushahay yaala ayuu ku xiran yahay Shariif Shuuriye oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed isla markaana ka soo jeeda beesha Jareerweyne waxba ma uusan galabsan gabar ooridiisa ayuu la aqal galay taasi oo keentay in xabsiga loo dhigo maxaad u guursatay gabadhani gayaanka maahan waxaad ka soo jeedaa beelo liito gabadhuna waxay ka soo jeedaa beelaha ugu tunka weyn deegaanada dawlad goboleedka Hirshabelle waa sida ay yireen xubno ka mid ah dadka xabsiga dhigay taasina waxa ay gaf ay ku tahay maqaamka muslimnimada iyo sidoo kale jinsiga Soomaaliyeed waxaana ugu baaqaynaa dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Hirshabelle iyo cid walba oo arintani ay qusayso in ay ku baxaan isla markaana ay cadaalad u raadiyaan wiilkaasi daada yar ee ku xiran gudaha magaalada Jowhar ee dawlad goboleedka Hirshabelle ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waa isguursadaan waa isgeeyaan markii laga soo tago hadallada cadiifada ee bulshada dhexdeeda ka taagan taasi oo ay ka dambeeyeen dad doonayay inay qoorta isku galiyaan shacabka Soomaaliyeed laakiin waxa ay ahaayeen dhaqamadii xilli jaahiliyeedka haddana waa laga gudbay iyadoo 2025 la marayo in la isku xiro maxaad u guursatay gabar ka soo jeeda beelhebla adigoo ka soo jeeda beelhebel waa daciifnimo iyo sidoo kale arimo urkutaale iyo murugo ku ah shacabka Soomaaliyeed Cali Goodlaabe oo qancinaya rag ka mid ah xubnaha hoos joogayaashiisa ah ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa uu amray in la soo xiro wariyaha oo xaaskiisa la joogay xilligaasi sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehelka wariyaha iyo sidoo kale xaaska oo u dhaxay wariyaha oo iyadu qudheeda sheegtay inay ka go'an tahay in nafteeda iyo maalkeedaba ay u hurto xaajigeeda isla markaana marnaba aysan ka tagi doonin oo ay ku ag dhimanayso sida ay tilmaamtay gabadha uu guursaday ayaana waxa ay u sheegtay kooxda uu hogaamiyo Cali Goodlaabe Xuseen in ay jeceshahay ninkeeda oo aysan ka hari doonin nafteedana ay u horeyso sidoo kale tana maalkeeda ay ku bixinayso sida ay tilmaamtay dhalinyarada waxgalka ee ka soo jeeda beesha Jareerweyne ee ka shaqeeya magaalada Jowhar ayaa waxa ay kooxda Cali Goodlaabe kala kulmayaan dhibaatooyin kala duwan waxa ayna marayaan heer maxaad u jeclaatay gabar ka soo jeeda jileec adiga oo jareer ah xabsiga uu u dhigo Cali Goodlaabe Xuseen mid ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala
deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. Tanina waxa ay ceeb, fadeexad iyo sidoo kaleeto dhibaato ku tahay maamulka uu hogaamiyo Cali Guudlaawe Xuseen iyo sidoo kaleeto guud ahaanba beesha ay ka soo jeedo gabadha oo ah beesha Xawaadle. waxaana tani loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto takoorka xad-dhaafka ah ee ka taagan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka, like saara, sii sheer garay oo la wadaag saaxiibada boggaanna follow soo dheh. mahadsanid.